السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوادا داوديال وركا عالمكا واد سيتوسا كلا سعطان سلطانكا تي في qodobada warkayga aad ku daawan doontaan ayaa waxaa kamid ah isbitaalka ugu weyn Kaabul oo la sheegay in uu xamili leeyahay tirada dhaawacyada aadka u badan ee ka dhashay qaraxii shalay ka dhacay halkaasi. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo sheegay in ay haboon tahay in si weyn loola tacaalo kooxda Taliban iyo Kuuriyada Waqooyi oo warcad ka soo saartay iskaashi military oo dhexmara Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka. balse marka ugu horeysa Afghanistan isbitaalada ku yaala magaalada Kaabul ayaa waxa ay xamili leeyihiin tirada dhaawacyada aadka u badan ee ka dhashay qaraxii aadka u weyn ee shalay ka dhacay halkaasi. isbitaalada caasimadda Afghanistan ee Kaabul ayaa la daaladhacaya sidii ay adeeg caafimaad ugu fidin lahaayeen boqolaal qof oo ku dhaawacantay qaraxii shalayto. qaraxan ayaa la sheegay inuu ahaa kii ugu baahnaa ee dalkaasi ka dhaca sanooyinkii ugu dambeeyay. saraakiisha isbitaalada dalkaasi ayaa sheegay inay awoodi leeyihiin la tacaalida baaxadda khasaaraha ka dhashay weerarkaasi aadka loola yaabay. ugu yaraan 95 qof ayaa ku dhimatay qaraxaasi ismiidaaminta ahaa. hogaamiyaasha caalamka ayaa cambaareeyay weerarkaasi. hogaamiyaasha caalamka ayaa siyaabo kala duwan u cambaareeyay weerarkaasi wuxuushnimo. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku baaqay in caalamka uu hal meel uga soo wada jeesto dagaalka ka dhanka kooxda Taliban. dowladda Afghanistan ayaa ku eedeysay dalka ay dariska yihiin ee Pakistan inay taageero siinayso mintidiinta geysatay weerar ka dhacay magaalada Kaabul. kooxda Taliban ayaa sheegatay mas'uuliyadda weerarka shalay ka dhacay caasimadda Afghanistan ee Kaabul, waxaana ay sheegeen in hadafka ay lahaayeen ay ka gaareen. isla dowladda Afghanistan ayaa waxay ku eedeysay Pakistan inay gacan weyn siinayso maleeshiyaadka sida weyn uga soo horjeeda dowladdaasi ee Taliban. dowladda Afghanistan ayaa waxay wadanka Pakistan ku eedeysay inay gacan siisay maleeshiyaadka ugu yaraan 94 qof ku dilay qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay caasimadda Kaabul. waxay sheegaysaa in weerarkii Sabtida ay ka dambeysay shabakada Haqqani ee xiriirka la leh ururka Taliban. Pakistanna gacan dhow ay la leedahay. mas'uuliyiinta Afghanistan ayaa waxay ku tilmaameen in uu ahaa dambi ka dhan ah aadanaha. xukuumadda Islamabad ayaa markasta waxa ay iska fogeysaa inay taageerto maleeshiyaadka Afghanistan sida weyn oo la dagaalamaya. qaraxan ayaa sida ay xaqiijiyeen saraakiisha dalkaasi waxaa ku dhintay ugu yaraan 95 qofood, waxaana ku dhaawacantay 158 ruux. gaari nooca ambalaasta ah oo laga soo buuxiyay walxaha qarxa oo loo adeegsaday weerarka ayaa ku qarxay bar control oo ay dadku ku badnaayeen kadib markii halkaasi lagu joojiyay gaariga. barta control oo ahayd goob ammaankeeda aad loo adkeeyay ayaa la sheegay inay ku yaalaan xarumaha dowladda Afghanistan iyo safaarado shisheeye. waxaa la rumaysan yahay in bartilmaameedku ahaa dhismaha wasaaradda arrimaha gudaha, balse dad badan oo halkaasi marayay ayuu qaraxa qabsaday. iyadoona shacab weynaha Afghanistan ay aad uga xumaadeen tallaabadan ay qaadeen kooxda Talibaaniyiinta ayna sheegteen mas'uuliyadda ku aadan weerarkani. waa mid ka mid ah weeraradii ugu dhigdaadashada badnaa ee abid soo mara wadankaasi Afghanistan. kooxda Taliban oo sheegatay mas'uuliyadda weerarkan ayaa waxaa sidoo kale ay sheegatay in weerarkani uu noqonayo kii ugu dhimashada badnaa ee bilahan ay geystaan. dowladda Mareykanka ayaa bayaan ay soo saartay ku cambaaraysay weerarkan dadka badan lagu laayay, waxaana uu madaxweyne Trump ku baaqay in tallaabo adag laga qaado Taliban. weerarkan ismiidaaminta ah oo dad badan ay ku dhinteen ayaa imaanaya kadib toddobaad markii Taliban ay weerareen hotel ku yaala caasimadda Kaabul oo in ka badan 20 qofood ay ku toogteen. waxaana hotelkaasi uu ahaa mid ka mid ah hoteelada ugu waaweyn ee ku yaala caasimadda wadanka Afghanistan. Kuuriyada Waqooyi ayaa waxay ka digtay iskaashi military oo dhexmara Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed. xukuumadda Kuuriyada Waqooyi ayaa uga digtay Kuuriyada Koonfureed in isbahaysi military oo ay la samaysato Mareykanka uu dhaawacayo xiriirka gacanka Kuuriya. qoraal saxiixan oo lagu baahiyay jariirada xisbiga ka taliya Kuuriyada Waqooyi ayaa lagu cambaareeyay wada hadallada istiraatiijiyadeed ee Seoul iyo Washington uga socda Hawaii. xogayaha gaashaaniga Mareykanka Jim Mattis ayaa carabka ku adkeeyay
in la sii kordhinayo cunaqabateynta si loola tacaalo waxa uu ugu yeeray daandaansiga kheyr-mas-uulnimada ah ee Kuuriyada Waqooyi. hase yeeshee waxa uu sheegay in diblomaasiyadda ay tahay in ay la socoto gabaaraan degid ah tallaabo military. labada Kuuriya ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyay u muuqday kuwa isku soo dhawaanaya iyagoona hal calan wada qaatay tartanka Olombikada ay labadooduba ka qayb galayaan. ciyaaraha Olombikada ee lagu wado in Kuuriyada Koonfureed lagu qabto bisha soo socota ayaa fursad u noqday in labada dhinac ay xiriir wanaagsan sameystaan abid, iyadoona la dareemi karo in xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dhinac isku soo dhawaasho aad u weyn laga dareemayo. balse tani ayaa waxay dhaawici kartaa heshiisyadii dhawaan ay kala saxiixdeen labada dhinac ee ku aadan in xaaladda biyo qabow lagu shubo isla markaana ay isweeshadaan. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu ku baaqay in tallaabo adag laga qaado Taliban. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa cambaareeyay weerarkii shalay ka dhacay caasimadda Afghanistan ee Kabul, kaasi oo ay dad badan ku dhinteen. bayaan uu soo saaray ayuu Mr. Trump dhammaan wadamada caalamka waxa uu ugu baaqay in tallaabo adag ay ka qaadaan kooxda Taliban kadib waxa uu ugu yeeray weerarkii foosha xumaa ee Kabul ka dhacay. weerarka Kabul oo loo adeegsaday gaari nooca gurmadka degdega ah oo walxaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa waxa ku nafwaayay ugu yaraan 95 ruux. dowladda Afghanistan waxa ay ku eedeysay weerarkan dhanka iyo Pakistan, inkastoo Pakistan aysan si rasmi ah uga hadlin arintani. haddana Mareykanka oo xulafo dowla leh dowladda Afghanistan ayaa waxa uu u muuqdaa inuu si weyn uga xumaaday weerarkan, waxaana uu ku baaqay Donald Trump in tallaabooyin degdeg ah beesha caalamka ay ka qaado kooxda Taliban oo muuqata inay kordhisay weerarada isdaba joog ah ee ay ku qaadayso xarumaha dowladda, iyadoona weeraradani inta badan ay ku nafwaayeen shacabweynaha wadankaasi Afghanistan. askar ayaa ku dhimatay weerar ka dhacay dalka Colombia. 5 ka mid ah booliiska dalka Colombia ayaa ku dhintay weerar bambaano oo lala beegsaday saldhig booliis. ciidamada ayaa shaqadooda isku diyaarinayay xilliga aroortii markaasi oo uu qaraxani ka dhacay meel banaanka ka ah saldhigaasi. booliiska dalka Colombia ayaa u ballan qaaday $18,000 oo abaalmarin ah cid walba oo keenta macluumaad ku saabsan cidii mas'uulka ka ahayd weerarkaasi. ugu yaraan 40 kale ayaa dhaawacmay kadib markii bambaano ah nooceeda kuwa meelaha fogfog laga hago ay ku qaraxday saldhig booliis oo ku yaala magaalada Paranquilla oo ku taala waqooyiga dalkaasi. duqa magaaladaasi ayaa sheegay inay rumaysan yihiin in qaraxani uu argos u yahay howlgallo ka dhan ah ka ganacsiga daroogada oo ay fuliyeen booliiska. booliiska waxay sheegeen inay rumaysan yihiin in qaraxa lagu siyaasay goobtaasi. madaxweyne Juan Manuel Santos ayaa cambaareeyay weerarkaasi waxaana uu ku tilmaamay fal fulaynimo ah. wararka ka imaanaya dalka Mareykanka ayaa waxay sheegayaan in Steve Wynn oo ahaa madaxa dhaqaale aroorinta guddiga qaran ee jamhuuriga uu gabi ahaanba xilkaasi iska casilay. madaxii dhanka dhaqaale ururinta u qaabilsanaa xisbiga jamhuuriga Steve Wynn ayaa is casilay kadib markii ay soo baxeen eedeymo ku saabsan inuu geystay tacaddi dhanka galmada ah. sida uu qoray wargeyska Wall Street, jimcihii bilyaneerkan 76 sano jira ayaa ku xadgudbay mid ka mid ah haweeney ka shaqeynaysay goobaha lagu daliigo ragga, waxaana uu mid kale ku qasbay in uu la galmoodo. Mr. Wynn ayaa beeniyay eedeymahaasi isaga oo ku tilmaamay inay yihiin wax caqliga aanan galaynin. madaxa guddiga qaran ee jamhuuriga Ronna McDaniel ayaa u sheegtay warbaahinta Mareykanka in ay ka aqbashay iscasilaada uu soo gudbiyay Mr. Wynn. dhanka kale ninkan ayaa waxa uu ku eedeeyay xaaskiisii hore oo dhacdo oo dacwada dagaalkooda ay taalo maxkamadda inay iyadu ka dambayso dacaayadahan lagu faafiyay xagga iyo warbaahinta. waxa kiciyay eedeymahan ayaa ah dacwada igala dhaxayso xaaskaygii hore ee Ellen Wynn, taasi oo haatan aan kula jiro dagaal dhanka garsoorka ah, ayuu ku yiri ninkan milyaneerka ah hadal kooban oo uu siiyay qaar ka mid ah warbaahinta. waa dhacdo la yaab leh oo mar kale soo wajahaysa qaar ka mid ah xubnaha qaybta ka ah
xisbigan aadka caanka u ah iyadoona ay muuqato intani ay saameyn ballaaran ku yeelan doonto sumcadda madaxa dhaqaale ururinta u qaabilsanaa xisbiga jamhuuriga.